fiidiyowgan like saara waxaan rabaa inaad fiidiyowgan like saartiin inay lacag lagama qaadaye like iska saar ha adaan kula hadlaya adiga dhibkay daawanaya inaan waalinaad muusa laakiin ma waali السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا دي سلامة صحابتي قالي قامير كستادوكا كجوكتا ومسكينتين ياريد سود وهذا صحابتي كنا كي كحرم حرجينا إن العافمات قبسان أنت حنوسنا سيلاها عافية تدبات السنة إلهي دبات ضحك كدر قادو أصحابتي قالي قامر لباد بنسكو صور نقولني كل حدا فيديو قطوبة مكبريهن حبينك فيديو قطوبة صوت تمانتي لما هليلي سكولة دينا ولنا لما في السحين marka saxaabta soo dhawaada horta intaan programkan anigu u soo daanu gadagalin waxaan idin sheegayaa coronavirus-ka inuu soo noqday xoog dalka Jarmalka dadka ku sugan waa inaad dadka maartay si soo booqanaya waa inay iska daayaan booqashada nadaafada waa in laga shaqeeyaa nadaafada xoog waliba inta qaban jirtay 3 jeer waa inaad sii jibaartaa waa inaad meel u tagin family-gaaga inaanad booqanin oo gurigaaga ku ekaato waa inaad mar walba ma garanaysaa aad dadka ka fogaatid haddii asxaabtaada tahay iyo haddii ay dadka kala tahayba waayo coronavirus-ka xoog buu soo batay kul qof walba waa ogyahay laakiin dadaalkuna waa fiican yahay mar walba in la iska dadaalo ilaahay waxaan ka barnaamijka ummadda islaamka inuu ilaahay naga qabto intii ku dhacayna waxaan leeyahay ilaahay ha caafiyo caafimaad sareecana ilaahay ha siiyo inta u jiiftana ilaahay uga soo kiciyaan la ka soo kiciyo markaas saxaabta qaaliga intaasi waxay wacdi gelin aan isla saxaabtaada la wadaag qof kasta Jarmalka jooga amba dadka kale Yurub adduunka meel walba ka jooga wadada coronavirus meel walba waa jooga marka saxaabta qaaliga waxaad ku dadaashaan inaan dadku isu tagin inaan xafladaha iyo waxa la aadin inaan xaflada la dhiganin inaan dadka maartay isbooqanaya guryaha iskugu imaanaya in la joojiyo oo nadaafadaasi laba jibaartid dad carruur haysatid gacmaha mar walba aad u dhaqdo oo mar walba aad maartay taxadir fara badan aad samaysid ilaahay shirkiisa ha naga haayo taasaan rabinaan idin sheegaa saxaabta qaaliga qof walba gurigiisa ku ekaado asxaabha u tagina asxaabha booqanina qof walba gurigaaga joog oo gurigaaga ka eko ogtay magaaladana waa la wada xirayaa marka saxaabtintaas idin la wadaagay inta waliba waxaan u sheegayaa waa dhalinyarta iska daayaan meelaha booqanayaan asxaabta isu tagtagaysa ma fiicna ha iska daayaan sababtoo tahay xanuunkiisa ay buu soo kordhay saa wada ogtihiinba inta aan la soconay wararka aan daawanina waxaan leeyahay marka iska ogaada asxaabta qaaliga inta markaa kaga imaado waxaan idii wadaa dad ogtina media maalmaha waa tala isku haysto wad ogeydeen ninka Bokor Mahdi la dhahdo dad badan baa eed ka soo sheeganaya oo qayr xad aan hayn oo saad ogeydeen Faadumiinay laki xaaji wacays ilaahan xarago muna iyo walibana maxay ahaaytay ajagis iyo Faarax Murtiile ma la oran karaa dad culus baa waliba ku jira sida Faarax Murtiile iyo ajagis oo aad wada garanaysaan oo aan nin maanta ku soo shaabaxay maxaa la dhahdaa ka fikir dheeri maxaa la dhahdaa bar waaydan dambe marka xujo inta xujo buu ku jiray isagu aan ku soo shaabaxay aan ahay nin riwaayado badan soo matali jiray bijaajilooyinka waxyaabo badan looga bartay ajagis oo wada garanaysaa sidoo kale Faarax Murtiile oo wada garanaysaa waa heesaa waana qoraa riwaayado badan buu sameeyay isaga laftarkiisu waxaasoo dada ayaa ka cabanaya kolley aniga caqli bi ilaahay siiyay kana caqli buu ilaahay siiyay talabaad dadku waxay u kala qaban lahayn bar anigu garan lahayn Ingiriiska dad badan baa jooga fanaaniin waaweyn baa joogta waayo dadkan u kala qaban lahayn inta dadkan oo dhan la isu keeno oo qof walba wuxuu tabanayo la dhex dhigo Google inta loo fidiyo oo qof walba wuxuu tabanayo inuu sheegto horta ayaa qurux badan oo dadka waaweyn dhex galaan oo maaragtay Bokor Mahdi la soo fadhiisiyo qof kasta wax tabanaya Ingiriiska ku joogay in la hadlo oo la dhahdo Bokor adiguna waad khaldantahay iyagana khaladkooda la saaro taas waa aragtideeda iyo fikirkayga laakiin adiga aragtidaada iyo fikirkaaga ay muhiim kuma xaq oo saygu la wadaag talabaad asxaabta waxaan ka codsanayaa 10 kun baan gaarayaa wax yar baa iga harsan waxaan rabaa share like subscribe inaad ii saarto intii aan hore iigu saarin subscribe-ka ma kara horta sorry asxaabta haddaan kari waayo hay qabanina laakiin waxaan idin ka codsanayaa inaad subscribe ii tirahdaan like share comment kana xaqoosa fikirkaaga aan aragtidaada igu la soo wadaag safar mid ku sheegay waan idin ku fiidooyin badan baa soo gelin doona insha Allah hawla yarna waa ku mashquulsanaa hawlaha yarna insha Allah waxaan rajeynayaa inay soo dhamaadaan hadii Ilaahayna gaarsiiyo marka saxaabta qaaliga tii hanaga la baxayline qorfeemena saxaabinta la iskama bariyo ma bagashay taasi tii ku shaqadina waad garanaysaa fiidiyooga intaad furto ha ka tagin adoo like ii saarin share na idin subscribe na idin hal daqiiqo xitaa kaama qaadanayso hadaad ii saarto gobol walaashaya marka aad baa mahadsantiin intii ii saareen waxaan leeyahay شرف كركنا ها هاتوا لدي كما حد علنايا
tobankaa kuna inaad gaadhsiisaan baa rabaa hadhowna dee waxaa kuri step step inaad inta ka badan kalena idinku bay gaadhsiin karaa hadda tobankii ku baaxidhaya waxaan rajeynayaa inaad i gaadhsiisaan asxaabta channelkayga ku xidhan aadna waa mahadsantiin asxaabta qaaliga asxaabta waxaan rabay inaan idila wadaago video kale waa laysu keenay barta tiktok waan ku arkay anigu videogaas waa maxay tahay Abubakar Mahdi baa lagaga hadlaya waxaana intii qof oo ku jiro arjagis ugu horeeyo Faadimiini iyo Muna ayaad halkan aan idinka tusi doonaa oo halkan ku daawan doontaan sidoo kale waxaan daawanayay intaan videoga idin soo gudbin waa wax yar waxaan daawaday Faadimiini gabadh maanta channelkeeda waa ku xiranahay ay soo fadhiisatay tabada riwaayadaha la matisho Faadimiini oo tiri si xun baa la ii galay والله وبالله ترى gabadha darteed baa videoga soo duubay caawa sababta waan xanaaqay marka videoga gabadha daawaday waxay tiri hees baa waxa la laga qabanay waxay tiri wuxuu igu dhaadaa mashraxa kor dharka kuma soo baxaysid dharka soo bedbedel saambaad waxa ma jiri taqaanid waxa ma sameyn taqaanid la horta waad iga dulqaad badan tahay aniga oo maahay dad badan baad ka dulqaad badan tahay gabadhaas maanta Faadimiina meesheeda joogtay magaceedu waa igu yar adigii magaceedu waa iloway laakiin sawirka ayaad halka ka arki doontaan insha Allah sawirkeeda halkan baad ka arki doontaan hadii Ilaahay ka dhigo amba videoga ka farko hore ayaad ka arki doontaan insha Allah marka soo galiyo wallahi gabadhaas soo daawada Faadimiina channelkeeda booqda nacamti caaraaba ku qabanaysaa gabadha waxa ku sameeyay hadii ay jirto oo runta Ilaahay baa inaga og laakiin waxay tiri saas ii galay oo wuxuu igu dharka iska bixi stage-gaano saaran ay ina yar igu soo diray oo ina tiradii cayday oo inta iska taagna oo dulqaad ku taagna horta dadka kooxdaas oo dhan meesha la soo metelayay waa dad dulqaad badan anigu haddaan iyaga ahaan lahaa hal cidi ustago maan dulqaateen hal cidi oo ustaga talabaad meel laga hiifayo oo lagu rabin waxa ku sii dhigay waa khalada fanaaniintan iyo waliba inta wax ka tirsan maxay tahay Abubakar Mahdi magaciisa ay goynay markii hore khalad samayseenba waxaad khalad ku samayseen YouTube share laguma wada noqdo kooxna hadii ay jirto kooxa badan baa jiri lahaa sida xidigaha geeska meeqa kooxa adduunka soo jiray meeqa koox hadii koox ay faa'iido weyn keenayso kooxa badan baa soo jiray qof walba waxa leeyahay imaanta ku tusaale qaato fanaaniinta waxa ku dhacay qof kastoo doonaya inuu channel furto kaliya ha furto qof kale uu share kula noqon qof kale uu saaxiib kula noqon wax gulub la wax koox la raadana ma jirto qof walba adiguna noolo qofka kale ha noolaada hadiiba aad qofka kale ka maarmooydo isaguna videogiisa ha duubto hadda videogaaga duubo YouTube-kaaga soo gasho taasi wax weyn ma garasay waxba ma dhibto asxaabta qaaliga waxba hadal isku daalin barto videoga yar ila soo daawada asxaabta qaaliga TikTok baan ka soo qaaday ila daawada waa daqiiqada yar haddaad Abubakar Mahdi أبوكر خفوا وجه قشتي مال صاحب خفوا وجه قشتي أدونك والله ما جوبه لبدا هذا رارع عثنة أيقا كو أجر مايو أنا إيه بلاس Abubakar Mahdi احتام قبلها عاد ماشي كل المينيس أحق درجة عاد أوجليس أبو كريسو هبلاي نايا أبو كريسو قبلها ماشي عاد كل المينيس يا أبو كران نمبري ولا ما مخلي Abubakar Mahdi aan wax yar dhihi karin war ninkani haddaad Abubakar Mahdi أبوكر خفوا وجه قشتي مال صاحب خفوا وجه قشتي أدونك والله ما جوبه لبدا هذا رارع عثنة أيقا كو أجر مايو أنا إيه بلاس Abubakar Mahdi asxaabta qaaliga wada la wada arkaysaan waa daawateen kule TikTok qof dad baa isu wada keenay videoyada iyagoo dhamaysa وانا قوس ير او wax yar videogu TikTok ana ka soo helay saacid horbaydu ku sheegay marka asxaabta qaaliga horta waa wax laga cadhoodo wallahi billahi ta'ala laakiin kulli khalad weyn baa jira meesha doona baa ka jiro intaas oo qof aniga aqligayga ma siinayso in intaas oo khaldan tahay oo la hal qof baa saxan qofka bilaadanka horta waxa la yaabay dad kale Abubakar Mahdi maxaa loo haystaa maxaa loo xaganaya Abubakar Mahdi dadkan ma garanaysaa hashaki saaro talabaad hal shakhsi دم صح سنان كرو أنت سوقفنا مقارنة ساي ما خلدنان كران أصحابته مقارنة سام خلدن هو إلهي لكن أنا بحاول أذكر خلقف بخلدنان كران لكن شنقف إلا لح قف عقلي إنه مجلس ساي خلدنا هذا وما تاسو إحنا قاعد على يسمعها بكرة ما دوح عليها ما خلدن هو إلهي هدي بقى تضغط الشقيني أحيانا تضغط عشوا من أحيانا وحصوض عنتين ميل وضع فريستا وحي خلدنا إسكسارة تاسع قروح بدن إناس كقبستان ولا قروح بديها هدي معلوم البنا عادي ضدك كتر سنة مقرن ساي ماشى هذا معلوم البكاس وتكان وماشى عيا في لقاعدة كدعان
cid martaba kuma aaminayso fideodaadana cid ma daawan doonto inta haddaan uga gudbo waxaan arkay wiil la yidhaahdo khadar la yidhaahdo oo runtii wiilkaa waaba nuxishooda anigu sababta nugu xishooda waxay tahay hablihii buu soo jawaabayaa hablihii buu caayaya hablihii buu aflagaadeynaya waad arkaysa ilhaan wuxuu ku lahaa waa wiilkii gabadhiisana berigii hore xumeeyey inkastoo tiri ha iigu yeedhin aniga ha iguna soo halqabanina fiima inanta fiima la yidhaahdo soore walaalo waa ka xumahay laakiinse khadar wax xun buu sameeyey sababta uu sameeyey waxay tahay 2 bilood buu ku jiraa kooxda 2 bilood oo keliya ku jiraa isaga oo intaasoo dhan kooxda soo dhisnayd oo dad badan ka tegeen intan un yani kuu muuqani aaway maxay ahayd way farxiya fiska aaway way ka baxday nasteexa aaway way ka baxday adiga oo khadar oo maanta yimid oo 2 bilood ku jiray kooxda miyaad rabtaa inaad hablaha aflagaadiso oo wax ka sheegto akhas caliga waxa waa laga qurux badan yahay marka hore mid khayr qabo maad hayn sababtaan ugu khayr qabo waxay tahay xaaskaagii dhama ayaa waxaad ku samaysay dadkoo dhan wada ogaayay qof kalena xal uma jiidaysid ba talabaad anigu waxaan u arkaa khadar qof ku naxsan kooxda sababta qofku markuu rabo inuu caan noqdo oo kooxdina uu ku naxsan yahay wax walba uu iska oranaya sababta ninkan wuxuu rabaa inuu caan noqdo qof baan state la koray ayaa wax weyn la ah halka qof kale uu ku haminayo ma garanaysaa inuu noloshiisa horumar ka gaaro inuu noloshiisa maaragtay uu guul ka sameeyo isagu maadaama ku faraxsan yahayba inuu maaragtay riwaayad yar oo lagu soo diro macnaba lahayn oo xitaa adigu baad samaysan karta riwaayad maadaama ku faraxsan ku silsiladii janna firdowsaaba lagu geeyay dee way ka suuroodaan inuu markaa hablaha caayo sababtoo gabadhiisa waxaa lagu mushkiiday gabadhiisii dhammeeda waddanka keentay ee aad ogeeday wuxuu ku sameeyey waad ogeeday codadkeeda wuxuu soo dhigay media markaanba dad kale waxaa lu soo jiidaya waa maya marka asxaabta qaaliga waxaan leeyahay fikirkiina iyo aragtidina kumanka igula wadaaga caawa iska hargabsanahay hay qabanina xogaa waa hargabsana culaha xaluulaya marka asxaabta qaaliga aad baa umahadsantihiin fikirkiina iyo aragtidiina waxaad igula soo wadaagtaan kumanka xagga hoose igula soo wadaaga wiilka khadarna waxaa leeyahay intaad gabadh usoo jawaabaysid waa laga qurux badan yahay wiilasha usoo jawaab ragga lasoo usoo jawaab gabadh way ku dhashay waad u dhaxday way ku dhaxday sorry asxaabta way ku dhaxday marka gabadhna wax ka sheegta ma mar waa hooyada mar waa walaasha inaad gabadh la tirsato ma aha talabaad adigu waa bukr mahdi maxaa kaa galay wax kaa galay baa bakhlada kooxda adigu waa lagugu soo diray adiga laguma caayo laguma aflagaadin sababta hablaha usoo jawaabaysaaba khalada sababta caan baad raadinaysaa laakiin dislike baad kala kulantay soomaalida waxaa ku jecelahay qofka xun dislike bay ugu hoobiyaan halka saxaabta anaga naga ilaaliya dislike laakiin aad baa mahadsantiin saxaabta qaaliga waan is jecelahay intii jecel aad baan u jecelahay intii nacabna aniga jecel marka biisaan loo waad leeyahay kulli waxaa laga yaabaa inaad isleedahay maxaa laga qofka horta waxaad ogaataan qof walba adduunka inuu leeyahay qof nacab ama dad ka soo horjeeda taan iyadiina geliya Soomaali maxamedeen qofka bacaan ha noqdo aan bayaan caan noqon waxa jira dad aan caan ahayn laakiin dad nacab ay jiraan dad xaasid ku ah jira dad noloshooda ku xun ay jiraan baa jira oo ma garanaysaa aad u bugin badin Soomaali baan waxa laga yaabaa adigu caan ba iska hay inaad qof aragto tira qofka noloshiisa ma u bugin ba hada qofka xawo mu ka halayn waxna kugu sameey taa waa laga qurux badan yahay dadku waa wada walaalo waa dad walaala sorry asxaabta qaaliga marka khadar oo hablaha caay walaalo hablaha daa bukr maadina waxa la lahaa dib isku noqo oo dadka wax ka tirsanaya intaad u yeedho heede ila wala waxan waa ceeb ila maalin walba meeliis ku haysanaysan is hor fadhiista wixii khalada hadii bukr maad khaldeen khaladkiisa hala saar hadii dadkan khaldeen khaladkooda hala saar meeliyahan maalin walba soo fadhiisanaysan naga daayay baad leenahay aad baa mahadsantihiin hadii kalena idinka raba in la idinka soo hadlo idinka raba in la idinka soo hadlo hadii caayaha jooji weydaan iyo dhibaatada anaga kale youtuberada anu hadda soo kacaya kamid ah iyaguna way soo qaadanayaan waanay ka hadlayaan aragtidooda fikirkooda ayaanay ka dhibanay intii aniga ila mid markaas soo wada kacayno youtuberada hadda soo kacayaan nahay dadaala taajabaas bu gaara waxaad leeyahay peace and love assalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.